بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصوماليات يدل يرادا قاسة هالابوركا اسكو دايدا برنامجيدا السوغانتا يا عورنتا waxaa ku halmaala suugaanta waxaan rabnaa hadii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan sidaan hore ugu sheegay page-kayga Facebook-ga inaan suugaanta xanayaal ah maansooyinka ha noqoto jiifto gabay iyo wixii la halmaala inaan sheegay inaan taxana u wadi doono hadii ilaahay yiraahdo ilaa iyo album gaaraya 12 suugaan oo kala duwan kuwaasna waxaan ugu talagalnay oo ka hadli doonaan waa arrimaha bulshada meel uma dhaafsiisna midba mowduuc bay ku soo baxdaa laakiin lama oran karo waa sida silsilada oo kale lama oran karo qaafiyad maahan laakiin waa album dhameystiran oo ka hadlaya baahida bulshada hadii ilaahay yiraahdo magacaygu waa hal abuur Cabdiweli Yuusuf oo ku magac dheer Cabdiweli Soomaali waxaan maanta idin bilaabayaa suugaantii ugu horeysay oo idin soo bandhigahay hadii ilaahay idinkiisu ay noqoto maansada ugu horeysa oo raba inaan soo qabto waxa la yiraahdaa guriya samo ma fasirayo waxa ay tahay qof walba uu garanaya laakiin kaliya waxaan rabaa inaan qeexo dad badan oo ila socda inaan u qeexo maxay uga duwan tahay maansadan maansooyinkii kale macnaha ay ka hadlaysa ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan qeexo waa godka ay ka hadlay godkeeda godku waa qayb ka baxsan jiiftada mana ahan gabay haddaan idin tusaaleeyo waxay godadkeeda oo kale tacalashan lagu soo qaataa dadka Soomaalida iyo intaan naqaano waxa kamid ahayd sheekooyinka Soomaalida ay ku sheekaysan jireen sheeko kamid ahayd oo dhalinyaradii maroodi cadhoole calashan godka baan ka rabaa inaan qiyaaso haddaan inta badan dadka dhalinyarada ay yaqaanaana wadaadadu beerka xayrta la way cunaan ilaahay may ka yaabaano wax noo dhiibaan ama wax naga siiyaan calashan waa godkeeda laakiin la socod wacan qaabka waa godka ay ku baxayso guriyasama waxay ka hadlaysaa dadka adduunka aad xilka u dhiibataan ee doorataan ee shalay dadka ka soo dhigteen haddana adinka dib idin cuno oo dhiiggiina dhacaankiina dib u dhuuqa bay ka hadlaysaa ila soco guddoonka galaalaca waaga ragga isu geefan misana garan waaye halkay ka godlaysa maxay ka gariifi maxay ka gadoodi gumaadkiya dhiigga hilbaha la guraayo raqdan gagan duurka maatada go'aanaysa galiiliyada meydka gurboodkiya ciil haddana kuwa geefan u soo gurxan riimi maxay uga guuxi maxay kala gaadi garawshiya maanka haddii xis ku guuro guddoonka hankiisu hadduu gini raaco gumaadka dadkiisa hadduu xil ku goobo kuwa garabkiisa hadduu dabar gooyo maxay tahay guushu maxay tahay geeri su'aashu isweydiinteeda waa shacabka waxa laga rabaa waxaan sagadmaynin hadduu ku gardaadsho ogow gargadoonka markuu garab waayo wuxuu gali goor xun xillan la isu guurin shacabka gacmihiisu gaashaan bira weeye misana gardaduubka geedkay kugu heegto tolow iga gaara lagama gurahay adoo shalayto dad laga soo dhigay lagu dhiibay matalida dadkan iyo mustaqbalka haddana inaad dib u dheefsato oo dadkaas dhiigooda iyo dheecaankooda aad dib u cuntid horta ma soconayso haddana maalinka lagu qabtay aad gacanta soo gashay dambiilo walba waxa ku xisaabtama maalin buu gacanta soo galaya maalinka uu gacanta soo galo tolow iga gaara lagama gurahay giraangir markii xilku gaaro adduunyo gidoontay gadaalki ma waaro danta isu geysay labaan kala guurin geedkii har qabowle naftan ka guurin roobkii galab hore dhirta doog gororsan ninkii nabad gooba asaga ku gamahayo haddaad jidka goyso xageebaad ku guuri haddaad galad weydo ha goobina kaadso ayadaa gondahaaga kusoo furan goordhow war ina adeer haddaad xilka iyo sharafta iyo in lagu sheeg Soomaalidu horta 80% waxay wax u raadiyaan wax la impact macnaheedu waxay tahay saameyn
hebel wuxuu ka tegay, hebel sidaan buu yeelay, alla geesisanaya ba horta wax loo bay Soomaalidu ku raaysaa wadaninimo ma hadaa aragto qof Soomaali wax qabanaya wadaninimo ma ahan waxay ka tahay impact saameyn bari magaca ka haro impactiga marka qaab loo raadiyaa jirta ayada maalin ku imaanaysa sababtoo tahay waxa aad suubisay baa sharaxaya waxa aad tahay usug oo kaadso ha goobin wuxuu yiri haddaad jidka goyso xageebaad ku guuri haddaad galad weyda ha goobina kaadso ayada gondahaaga ku soo furan goordhow waxaan dadka geynin guudkaaga ha saarin caqliga kuu gaara hadduu gudan waayo xilkaa ku gadaaman ama ha u guurin walaalka ha goynin ha gowricinkiisan hadda balgaro ha gowricinkiisan geyiga Soomaali dadka ku gadaaman xuduuda ma geeyo qabyaalad gamuuna reer isku goynta dadkeenu ma geeyo dangaara nin gooba dalkeena ma geeyo dagaal mid ku doono si uu u dakeeyo danteena ma geeyo waxaan nahay Soomaali gudaha wadankeena badaha isgudbaya webiga soo gurguurta geela dhalay deyrta beeraha gal ku buuxo gidiga arligeena galada lagu faana midaan uga guurno inooma gudboono wanagan cayr iyo u yaacnaya bal meel aan maanta intii naga horeyso hore u tagtay iyo kuwa dambow war meel sahan ma noo haysiin waa su'aal daaweyn sahan ma noo haysiin aan wadankan iska gadno iyo dhibkiisa mid kale uga guurno gudaha wadankeena badaha isgudbaya wabiga soo gurguurta beeraha gal ku buuxo geela dhalay deyrta gidiga arligeena galad lagu faano midaan uga guurno inooma gudboono dad yahow kala saara giblaha iyo heesta warmaha wax gumaada nimaad shalay geysay waa kan halkan u dan lahaa nimaad shalay geysay halku ku gamaayay intuu gubatiina maxaad uga gaabsan war qofaad shalay adigu dad ka dhigtay adaaba ilaa waxaan iska lehe mar walba adaa qarannimadan iyo dalkan iyo waxaan adduunkan iska lehe qofaad horta shalayta adigu aad dad ka dhigtay intuu ku soo cuno halkan keeno maxaad uga gaabsanaysaa hebel baa sidaan yeelay bal maxaad uga cabanaysaa adaaba shalay geysay warad naga tagma tire midka aad u aragtay inuu ka roon yahay maad ku badash adoo gob ahaaday garaartay wanaaga ha yeelin gun qaado gunnada iyo soor xun ha siisan go'aaga war sharaftu waa shay qaali ah oon la helin lacag kuma goyso hantiyo ma goyso wax kale ma gooyaan bal suun yaro lagu siiyo far ku difan le bal fiir maanta dadka anaga namatala oo Soomaalida u dhaqaaq uu baxaya wax yar baa la soo siinayaa or dadka ku soo laabalay intaas buu siinaya sharaftiisii dhan iyo sumcaddii uu shalay talaha maalinku campaign gareynayeen waxa ayna libaax midaan ku gudaynin midaan garanaynin waxaad gudagoyso ha siinin gartaada gar iyo gardarraba midaan garabkaaga xilkaaga garwaaqsan maxaad ka garaabi markii la isgaaro go'doon la istaago midaan ku gudaynin maxaad ka garaabi baahida gurma taagan midaan garanaynin haddaad u garbayso gunnada lagu siiyo xagee bay ku geyn maansada taas intaasaan uga haraya waxaa leeyahay magaceeda Guryo Samo waa dareemi karaa qof walba Soomaaliya waxaan uga hadlayay